iyadoo maalintii shalay u ahayd markii si rasmi ah hoteelka Xaraf looga daafuray tababar socon doona muddo 2 cisho isla markaana ujeedadiisa guud ahayd mid daaran sidii beelaha Gabooye ee ku dhaqan deegaanada Somaliland loo sii xoojin lahaa doorka ay ku leeyihiin dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarka guud ee bulshada Somaliland kana qaybgalayeen xubnaha isugu jira Salaadiin Cuqaad Duqeyti Waxgarad iyo xubno kala matalay mas'uuliyiinta dalada ururada aan dawliga ahayn Sonsof iyo ururada inta badan sida weyn diiradda ugu haya falal kala diga kuwa arrimaha xuquuqda aadamaha oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Dami Youth Development Organization oo loo soo gaabiyo dayda oo kaashanaya hay'adda Ansom oo ka tirsan hay'adaha qaramada midoobay ee dhanka xuquuqda aadamaha ayaa go'dhoweeyta si rasmi loo soo afmeeray. Injineer Xuseen Ibrahim Buuni waxa uu ka mid ahaa saraakiishii sida weyn ugu hawlana hirgelinta kulankan. Waxa uu si mugle u faahfaahinaya waxyaabihii qarsoomay iyo qodobadii intuu kulanku soconayay sida weyn loogu falanqeeyay. Alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaanu ku jirnay kulankan 2 cisho oo shalay iyo maanta ah ujeedadiisu ahaa sidii looga hadli lahaa arrimaha horumarinta ee dhan walba leh ee beelaha minoritiska ah haday noqoto dhanka siyaasadda haday noqoto dhanka caafimaadka haday noqoto dhanka cadaaladda haday noqoto dhanka aqoonta iyo waxbarashada iyo haday noqoto arrimaha political participation-ka waxa la afka qalaad lagu yiraahdo ka qaybgalka siyaasadda waxa kulanka soo qaban qaabisay oo runtii soo qabatay hay'adda la yiraahdo Dami Youth Development Organization oo marka magaceedana la soo gaabiyo dayda la yiraahdo daydo waa hay'ad ama urur maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka sidoo kalena ka shaqeeya arrimaha horumarinta beelaha minoritiska guud ahaan waxa la isku yiraahdo qodobada ka soo baxay kulankii 2 cisho socday waxa qayb ka noqon doona ama ka mid noqon doona guud ahaan kooto markaynu leenahay sawirkan baxa ama badeynta badan laga hadlaa kootada waxa looga hadlaa waa ka qaybgalka siyaasadda kootadu way ka fara badan tahay affirmative action kiiba ku jira marka kootadii siyaabo kala duwan baan halkan loogu qaadaa dhigay ama loogu falanqeeyay muddadii 2 cisho ay socotay kulanku kootada waxa looga dhigay political participation-ka oo inay ummadani ku yeelato kuraasta qaranka looga arimiyo xubno amaba cities ay ku yeelatay iyaga u gaara oo golaha wakiilada kamida golaha deegaanka kamid noqonaya golaha wasiirada kamid noqonaya agaasimayaasha guud maareeyaasha hay'adaha gudoomiyaasha hay'adaha madax banaan ee dawliga iyo arrimahaas oo dhan inay ummadani kooto amaba tiro cayiman ay ka hesho sidoo kale social issues-gi ayaa iyaduna kootadii soo galaysa oo muhiim ay tahay in ummadani ay ka hesho socialka markaynu leenahay waxa qayb ka noqonaysa waxbarashadii oo inay free education of secondaries ay hesho arinta runtii waxaanu aad uga mahadnaqaynaa xukuumadda madaxweyne Axmed Siiraanyo waxay sameysay qorshe ka duwan xukuumadihii hore Somaliland soo jiray ama 3 dawladood ee ka soo horeysay qorshayaashii sameeyay mid ka duwan bay sameysay waxay dawladda kaliya 25 arday ama 25 dhalinyaro jaamacadaha scholarship ka bixisay wasaaradda maaliyadda oo miisaaniyadii u dambeysay ay ku dartay Samsom Cabdi Aadan wasiirka wasaaradda maaliyadda waana runtii mid aanu aad uga mahadnaqayno marka talada iyo aragtida laga yeeshay bartan la isku qaatayba waxa ay tahay in tirada dawladdu ay bixisay iyadoo aad looga mahadnaqayo in la kordhiyo in dawladda ay ka codsanaysaa bulshadani waxa kootadii qayb ka noqonaysa arrimahan developmental issues kala yiraahdo barnaamijyadan horumarinta ee guud ahaan qaranka ka socda Jamhuuriyadda Somaliland sanduuqan horumarinta ee Somaliland la yiraahdo SDF barnaamijyadan ay wado hay'adan JBLG infrastructure-ka haday noqoto dhismaha wadooyinka haday noqoto dhismayaasha iskuulada iyo goobaha waxbarasho haday noqoto goobaha caafimaadka oo MCH oo ay xaafadu lahayn oo iminka ay tabanayso sidoo kalena haday noqoto goobahan police stationska xaafado oo aan iyaduna saldhig lahayn xaafada ummadani u badan tahay daamiya oo deegaan ahaan ay u badan tahay iyadoo aan ay rug leedahay oo aan police station lahayn waa waxyaabaha ka soo baxay sidoo kalena waxa qayb ka ah economic dhaqaalihii oo resource sharing dhaqaalaha aynu haysano ama keeninahu gudaheena ku haysana ha noqdo ama mid dibadda inooga yimaada ha noqde in resource sharing la sameeyo oo ummadan looga tala galo wax lagu horumarinayo gudahooda state administration kana inay ummadani kooto ka heshay rabta kooto ku heshay rabta oo wasaaradihii dawladda hay'adihii dawladda haday noqoto hay'ada madax banaan haday noqoto wasaarado haday noqoto hay'ad
kasta oo dawliya in shaqaalihii si fairness looga qayb geliyo oo ay ka helaan xubno iyaga uga shaqeeya arinta justice-ka hadaynu u soo noqono inay ummadani hesho cadaalad xagga garsoorka ah oo arintii aynu ka hadlaynay ilaa shalay toole oo waqti badan runtii ku baxday arintan booliskana waynu ognahay tababar ku filan ma haysto oo uma tireen gareysna siday dadka ula macaamilayaan ama sidii u waajahayaan meelaha goobaha ay shaqaaqadu ka dhacdo haddana waxaad moodaa in ay ku soo yara dhiiranayaan ummadan marka ay amba dhexdooda shaqaaqa ah ka dhacdo amaba iyaga iyo cid kale hay iska hor timaadee in arinta booliskana xukuumadda waxay ka codsanaysaa ummadani in la xadido oo ay dawladdu gacan bir la ku qabato waxyaabahaas ka soo baxay waxa sidoo kale ay daydo ururka Dami Youth Development Organization uu soo saari doona report dhameystiran oo arrimahan ka hadlaya labada cisho halkan lagu qaadaadhigayay waanu idinla share garayn doonaa amba idiin soo gudbin doonaa markuu reportkaasi soo baxo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada ka kala timid 6 gobol ee Somaliland ka timid Awdal Saaxil Sool Sanaag Togdheer iyo Saaxilba muddada labada cisho sida waqtigooda uga qayb qaateen aad baan uga mahadnaqaynaa sida patient u ahaayeen aad baan uga mahadnaqaynaa sida afkaarta iyo aragtida iyo fikirka qof walba gobolkiisa ka jira ha uga qayb qaateen aad baan uga mahadnaqaynaa halkan isugu timiday salaadiinta uqaasha waxgaradka maxaa aqoonyahanka iyo ururada haweenka sharafta leh inta markaan ka sii gudbo ilaahay baa mahad iska leh waxa kale oo halkan aan uga mahadnaqaynaa hay'adan isugu yeedhay ee u qabatay dadka shirka qiimaha badan leh waxa aan hay'adda lafteeda leenahay waxa aad iyo aad baad imika aan u arkaynaa wixii aad qabateen waxyaalo fara badan oo aad u wanaagsan inuu ka soo baxay shirkii waana ka midho dhalinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo laakiin hay'adda waxaanu rabnaa oo aanu ka codsanaynaa inantaa meesha nooga timid gabadha joogta hore anigoo uga hadlay imikana ku sii celinaya bal waxaad samee dadkaas sidii aad u maalgelin lahaydeen ee aad u soo qaadi lahaydeen inay xuquuqdooda uga doodaan ee aad u hirgelin lahaydeen sidii inay ay dadka ay la sinmaan ay ula soo gudboobaan dee inaad maalgelinta xaggiina laga filayaa waxaa kaloo meesha jira dee Sool iyo Sanaag iyo Awdal waasha waa la isugu keenay intaa waxa la isugu keenayaa inay maxaa ku joogan imika inoo yimiday ay awoodooda ka muujiyeen inay yihiin niman lagu kalsoon yahay oo wax qaban karaya oo isugu keeni karaya dadka laga tirada badan yahay marka inaad taalaftiina idinku tixgelin gaar ah aad siisaan oo halka aad kala xidhiidhaan oo ina markii koowaad idinka noqonin ee halka aad ka sii wadaan maalgelinta aad u wadaan iyo sida aad hay'adaha kale aad u gaarsiin lahaydeen wararka dadkan baahidooda iyo sida ay yahayn aqoontooda iyo heerka ay taagan yihiin waayo maanta waxa aad u leedihiin cilmi badan baa idinka soo baxay halkan waayo arag baad u tihiin waxay inantan meesha in gabadha inooga soo qayb gashay ay u tahay maanta waayo arag waxay arkaysaa dadkani sida ay wax u qabsan karayaan ama heerka ay taagan yihiin marka waxaanu ka filinaa gabadha lafteeda waxaanu ka filinaa ururkan maalgeliyay inay hore u sii wadaan ay halka ka sii talaabsadaan adduunweynahana baaqa ay gaarsiiyaan bal dadka sidii loo soo gacan qaban lahaa ee loo doodin xuquuqdoodii loo gaarsiin lahaa loo soo gaarsiin lahaa dadka kale ee laga tirada badan leh loo soo gaarsiin lahaa yaanu idinka codsanaynaa anigoo hadalka intaa ku soo gaabinaya wassalaamu calaykum waraxmatullah iska waxgaradka bahda saxaafadda salaadiinta iyo dhammaan qaybaha bulshada ee gobolada dalka iska yimidba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxa xaqiiqa inaynu labadii cisho ee aynu halkan fadhinay aynu si qoto dheer uga hadalnay 3 qodob oo ina khuseeya oo ah sidee baynu uga baxnaa dhibaatooyinka inagu halkan aynu maanta taagannahay halkaynu uga dhaqaaqnaa dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda iyo dhinaca horumarka taasi waxay cadaynaysaa oo ay daliil u tahay bisaylka aynu bislaanay ummadahan qoomiyadahan iyo beela ahaanba inagu oo beelaha afarta
beelaha laga tirada badan yahay ee muusadhariyada tumaalada hawlaha madhibaanka annaasta amba yibraha inagoo kala ah oo dhammaanteenba hawlaha wardheeraha dhammaanteenba dalkan ku dhaqan waxaynu cod dheer ugu sheegaynaa madaxda qaranka waxaynu cod dheer ugu sheegaynaa inay ogaadaan inay inaga go'an tahay talada dalkeenna si inclusive ah inay inooga qayb geliyaan hadday tahay golayaasha qaranka komishanada qaranka ee ma aragtaa dowladaha hoose gobol ilaa district ilaa region waxaanu cod dheer ugu sheegaynaa bahda xuquuqda aadamaha guud ahaanba caalamka gaar ahaanba Somaliland in xadgudub kasta oo nagu yimaada inuu yahay midaanu maanta u leenahay difaacayaashii ka hortegi lahaa ka hadli lahaa ka dacwoon lahaa isla markaana cid kasta oo ay access uga baahayiin waa inay u fududeysaa sida hay'adaha caalamka waxa aan kala oo leeyahay arrinta dhaqaalaha waa laba siyaabood midi waa ka aynu inagu muruqmaalkeena iyo maskaxdeena kula soo baxno sidii aynu u safgaraysan lahayn waynu isfarnay dardaarankeedii waynu qaadanay midna waa sidii aynu u abuuri lahayn dad aqoon leh oo xirfad leh oo awood leh oo ummadda ka dhex muuqda oo ma aragtaa gaadha himilo ganacsi oo wanaagsan himilo siyaasadeed hiigsi nololeed hiigsi dhaqan-dhaqaale takoorka waxaanu halkan ka qeexaynaa in cidna takoori kartaa aanay jirin cid aanu ka ogolaanaynaana aanay jirin isla markaana waxaan idinku dhiirigelinayaa dhammaantiinba in aynu bulshadeenna hadday tahay hartiga samaroonta isaaqa ciisaha waa inaynu si dhaba u falgalnaa ummadda inaga laftigeennu in aynu gidaarkaa duminaa oo dagaal adag u galnaa oo aynu xoog ku duminaa inagoon cidna baryeyn ilaahayna ummaddiisa u simay ummad islaama baanaynu nahay waxaana leeyahay